warintaynan maranin yurub xanuunaa ka dhacay wadannada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyey waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen wadan dhan oo 1/3 hadduu 3 milyan ha 10 milyan mar qura wada dhimatay black days kay sheegi jireen laakiin way fakareen waxay u fakareen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibti sii badanayso dadkii uu isdhexgalayay how they can survive sidee u noolaan karaan therefore waa la maalgeliyay baadhitaana la sameeyay kan baa la sameeyay waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo tallaalku waa xanuunkii oo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudayaa oo qofka biniaadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira difaacagaas ba waxa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarku bilaabay sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto uu record garaynaya yani khalaaya lamfaawiya white blood cells kaagu waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxa soo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyay dhigaaga cad white blood cells kaaga waxa soo dhan leh xanuunku markuu jirka soo galo qola basaasto waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jirka soo galay waxa loo dalbadaa ciidamada maafiina qaybo kamid ah ku garaaca la yiraahdaa hadii madfacaasi dilo recordka lagu qoraa markastoo xanuunkaasi yimaado madfac hebel buu baahan yahay ku dhufo hadduu madfacaasi dili waayo T cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa oo ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalka waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kan bay waa shuhadadii meesha ku dhimatay labadii kooxood ee isgalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxaan ka karayaa bay leeyeen waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jirkaaga ilaahay baa diyaariyay waxa lagu talagalay marka diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaan ba uga takhalusi karo talaalku waa inta uu marka waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunada markastoo jirkaagu dareemo instantaneous